waa kuma musharaxa jeediyey khudbaddii ugu saameynta badneed ee golaha shacabka. Dhammaan musharaxiinta u taagan xilka guddoonka golaha shacabka ayaa jeediyey khudbadahoodii ay xildhibaanada ugu bandhigayeen waxqabadkoodii hore, waxa ay qaban doonaan iyo ugu dambeyn codsigooda gaarka ah. Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa mudanayaasha u soo istaagay qabashada xilka guddoonka golaha shacabka ayaa jeediyey bayaankiisii musharaxnimo, iyada oo lagu tilmaamay khudbaddii ugu saameynta badneed ee gaarta dhagaha xildhibaanada, taasi oo taabanaysay dhinacyo kala duwan. musharax Shariif Cabdalla oo xildhibaanada u caddeeyey inuu yahay shakhsi ku adag ammaanada oo in ka badan 45 sano waddanka ugu soo shaqeeya duruufo kala duwan, ayaa ku dheeraaday soo bandhigga qorshihiisa ku aadan difaaca xuquuqda iyo xasaanadda xildhibaanada, maadaama xasaanadda xildhibaanadu ay tahay lama taabtaan sida ku xusan qodobka 7-aad ee dastuurka. xildhibaanada golaha shacabka oo u dhagraaricinayay hadaljeedinta Shariif Cabdalla ayaa laga dheehan karay sida ay muhiim ugu tahay inay helaan hoggaan fahmi kara qiimaha xildhibaanka, muhiimadna siiya kor u qaadista sharafka xildhibaanka. Shariif Maxamed Cabdalla ayaa khudbadiisa meelaha ay xoogga saartay waxaa ka mid ahaa daryeelka xildhibaanka, iyada oo laga ambaqaadayo isbeddelka amni iyo dhaqaale ee dalka. ayuu musharax Shariif Cabdalla soo bandhigay inuu abuuri doono barnaamij kafaalo qaadaya xildhibaanada inta ay joogaan marka ay soo laaban waayaan ama ay howlgab noqdaan. qodobkan ayaa noqday mid kale oo muhiim ah oo aada u soo jiitay dareenka xildhibaanada. guddoonadii hore ayaa ku fashilmay inay xildhibaanada u sameeyaan wax kasta oo u fududayn karay inay waajibaadkooda gutaan, dalka iyo dadkana ugu shaqeeyaan si cadaalad ah. matalaadda, dhammaystirka dastuurka, tayeynta aqoonta, madax bannaanida golaha, midnimada golaha iyo qodobo kale oo muhiim ah ayuu dul istaagay Shariif Maxamed Cabdalla oo khudbadiisa si weyn u soo jiidatay dareenka xildhibaanada golaha shacabka, oo laga dheehan karay sida ay ula dhacsan yihiin kelmadaha uu jeedinaya Shariifku. Shariif Cabdalla ayaa ballan qaaday in haddii loo doorto uu golaha ku hogaamin doono karti, aqoon iyo hufnaan, si golaha shacabku uu noqdo mid sharfan oo si wanaagsan u guta waajibka saaran ee dastuuriga ah. gabagabada hadaljeedinta musharax Shariif Cabdalla waxa uu dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ka codsaday in codkooda siiyaan kuna aaminaan guddoonka 4 sano ee soo socota. shacabka Soomaaliyeed ayaa dhankooda horey uga codsaday xildhibaanada golaha shacabka inay doortaan hoggaan aamin ah, iyaga oo tilmaamay in Shariif Cabdalla uu yahay nin u qalma xilkaasi.